bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa waddanka t v oo aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo soomaaliya qodobadaan idiin haynana waxaa ugu dooroon madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka haraya tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya sida ilawareedyo lagu kalsoon yahay ay inoo xaqiijiyeen kadibna u tanaasulaya maxamed cabdulaahi farmaajo tallaabooyinka ay qaadeen xildhibaanada oo rajabeel ku riday murashaxiin badan ruushka oo sheegay in uu xal u hayo walaac caalamka ka taagan kuna digtay reer galbeedka dunida oo aad u hadal haysa qaabka loo qarxiyey iyo waxa lagu dhuftay taangii ruushaan ah tooreedkiisa oo cirka galay 250 cagood haddii aad neeto ku biirtaan waxa aad noo tihiin bartilmaameed idman ruushka oo u digay Sweden iyo Finland iyo waxa ay daba socdeen kiis culus balse midna magaalada ayaa lagu dilay muxuu salka ku hayn karaa dagaalka Ukraine qodobadaasi qodobo kale ayaa waddanka ku daawan doontaan taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 13 May sanada 2022 iminkana u diyaar garooba iyaga oo fidsan aynu ku bilowna marka hore xog aan helnay ayaa sheegaysa in Deni uu u tanaasulay isla markaana taageeray maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay ka soo wada jeedaan halbeel talaabada uu qaaday Deni ayaa ku timid cadaadis xoogan oo kaga yimid bulshadiisa siyaasiyiin iyo ganacsato ka soo jeeda maamulkiisa iyo xaqiiqda ah in ololihiisa doorasho u ahaa mid aan saldhig adag lahayn murashaxiinta ugu cadcad doorashada ayaa la rumaysan yahay in ay kala yihiin farmaajo shariif sheekh axmed xasan sheekh iyo kheyre mana cadda haddii tanaasulkan uu horseedi doono tanaasulyo badan oo kale oo murashaxiintu ay aad u yaraan doonaan kadibna murashaxiin kooban isku soo harayaan waa tahay inta badani xildhibaanada labada aqal ayaana tegin teendhada afisooni oo murashaxiinta madaxweynaha ay labadii maalmood ee tegey ka soo jeediyeen khudbadahooda waxqabadkooda ah waxaana la arkay kuraas badan oo eber ah tirada xildhibaanada tagtay hadaljeedintan ayaa xitaa dhammayn konton iyada oo xubnaha labada aqalna ay yihiin 329 tallaabadan ayaana bannaanka u soo saartay in xildhibaanada intooda badani aysan dan ka lahayn waxqabad iyo ajande siyaasadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cusub ee dalka taas beddelkeedana ay door bidayaan dhaqaale amaba xulafaysi siyaasadeed arrintani ayaa rajabeel ku riday murashaxiin badan oo markii horeba rabay in ay xildhibaanada ku beerlaxawsadaan hadaljeedinta iyadoo oo ka horeba mudanayaasha ay soo saarteen inta badani murashaxiin gaar ah oo codkooda ku tashanaya cidda keliya ee hadda faa'iidada qabta ayaa ah murashaxiintii markii horeba xoogganaa ee haystay isbahaysiga siyaasadeed ee aan khudbad wax ku raadinaynin kuwaasoo kale ah xasan sheekh farmaajo shariif sheekh axmed tallaabada ay qaadeen xildhibaanadani ayaa waxaa si weyn uga carooday xubno uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha senatar cabdiqani gelle maxamed oo isagu ku tilmaamay wax laga xumaado sida ay sameeyeen xildhibaanada oo ay khudbadaha u jeedinayeen murashaxiinta madaxweynaha kuraas bannaan doorashada madaxweynaha ayaana lagu wadaa in ay qabsanto 15 bishan haddii uusan jadwalkeeda ku imaanin isbeddel lama filaan ah oo dib u dhac kale ay ku keenaya si kastaba waxa maalmihii u dambeeyey si weyn loo dareemayay ololaha murashaxiinta madaxweyne ee ay ku rabaan in ay isaga gadaan bulshada Soomaaliyeed iyo kala soo jiidashada xildhibaanada oo markii horeba qaarkood lagu xirtay koontooyin gaar ah waa hagaag markana caalamka ruushka ayaana rajaynaya in uu u soo go'o dalaq qamadi oo aad u badan sanadkan kaasoo ay ku jirto sarreen rikoor jabis ah sida uu shalayba ku faanay madaxweynaha ruushka ee Vladimir Putin oo soo xiganaya xogo hordhaca dalag wanaagsan ayaa la filayaa sanadkan sida laga soo xigtay khubarada dabcan waa qiyaaso hordhaca goosashada miraha ayaana waxa ay gaari kartaa 130 milyan oo tan oo ay ku jirto 87 milyan oo tan oo sarreen ah ayuu yiri Putin isagoo xusay in tani ay noqon karto rikoor ka mid ah kuwa ugu sarreeya dhanka goosiga sarreenka markii dib loo eego taariikhda ruushka oo dhan sida laga soo xigtay madaxweynaha ruushka natiijada noocan oo kale ah waxa ay dalkiisa u saamixi doontaa inuusan keliya daboolin baahiyaha gudaha laakiin uu sidoo kale kordhiyo sahayda suuqa caalamiga ah dalalka jaalka ah taasoo aad muhiim ugu ah suuqyada cuntada adduunka xilligani Putin waxa uu intaasi ku daray in tiro dalal ah
ay soo fool saartay khatar macluuleyd isaga oo tilmaamay in eedda arrintaasi ay gebi ahaanba dusha u saaran tahay madaxda reer galbeedka. dalagga ugu badani ee ruushka soo saaray ayaa waxa uu ahaa kii la diiwaan geliyey 2017 kaasoo dhammaa 135 milyan oo tan oo ay ku jiraan 86 milyan oo tan oo sarreen ah. sanadkii 2020 tiradu waxa ay ahayd 133 milyan oo tan oo miro ah oo ay ku jiraan 85 tan oo sarreen ah. sanadkii hore 2021 dalagga soo go'ay waxa uu gaarayay 121 milyan oo tan oo miro ah oo ay ku jiraan 76 milyan oo tan oo sarreen ah. ruushka ayaana la saadaalinayaa inuu sii ahaan doono hoggaanka amaba horseedka suuqa qamadiga adduunka sannadaha soo socda. waa tahay waxaa soo baxay muuqaal muujinaya taangii ruushka laga leeyahay oo mar qura lala helay qarax xooggan meel ka yara baxsan magaalada aadka lagu coltamaya ee Mariupol, taasoo keentay in tooreedkii taangigu uu cirka galo 250 cagood. muuqaal yaab leh oo uu duubay TV-ga dowladda Shiinaha ee Phoenix ayaana muujinaya qarax lama filaan ah oo ka dhacay bariga Ukraine kaas oo la arkay taangii uu ruushku leeyahay oo mar qura kala firdhay. macadda nuuca hubka loo adeegsaday qaraxan weyn, laakiin waxaa hubaal ahayd inuu ahaa mid aad u culus markii la eego sida uu taangiga uga xoog badiyey. tan ugu daranina waa sida uu u go'ay tooreedkii uu ka rikibnaa qoriga madfaca ah ee taangiga oo isaga oo sidiisii isu haysta hawada galay ilaa iyo 250 cagood sida mashquul badan oo ku yaala magaalada ay dagaaladu hilfaha u qaadeen ee Mariupol koonfur bari ee Ukraine. xubinnimada Sweden iyo Finland ee NATO iyo geynta cutubyo ka tirsan isbahaysigaasi ee dhulkooda waxa ay dalalkaasi bartilmaameedyo suurtagal ah uga dhigi doonta ruushka, sida uu sheegay wakiilka Moscow ee qaramada midoobay. way og yihiin hadda in ay bartilmaameed noqon karaan haddii ay xubin ka noqdaan NATO, waayo taasi waxa ay keenaysaa in ruushkuna qaado tilaabo la gudboon, ayuu yidhi Dmitry oo waraysi muuqaal ah siiyey UN-HED. haddii ay dhulkooda tagaan ciidamo ka mid ah NATO, dhulkani waxa ay noqonayaan bartilmaameed ama bartilmaameed suuragal ah oo la duqayn karo. waxa ay si caadi ah noola noolaayeen deris wanaagsan muddo 10 sano ah. haddii ay si lama filaan ah u doortaan inay qayb ka noqonayaan koox aynan saaxiibo ahayn, iyagoo ayayna ku xiran tahay, ayuu raaciyey Polonix. sidoo kalena isagoo wariyaasha la hadlayay afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaana sheegay in tallaabada ay Finland ku doonayso ku biiritaanka NATO ay tahay mid lagu qoomameeyo iyo sabab lagu soo rogo jawaab celin la siman oo u dhiganta. falcelinta ruushka ayaana daba socota warkii ay soo saartay Finland oo sheegayay in dhaqso ay ugu biirayso isbahaysiga militariga NATO, sida ay sheegeen madaxweynaha Finland Sauli Niinisto iyo ra'iisul wasaaraha Sanna Marin khamiistii. Sweden ayaana iyaduna go'aan gaari doonta dhowaan, iyada oo xisbiga xukuma Sweden uu kulmayo axadda soo aadan ee 15 bishan aynu hadda ku jirna ah. ugu dambeynna guud ahaan hubka la isu adeegsado dagaalada waa kuwo kala duwan. kuwooda ugu khatarsan waxaa ka mid ah dagaalka dhaqaalaha xilligan uu dunidu ka hirgelay barnaamijka cari edegeynta, iyaga oo la eegaya awoodaha kala duwan oo loo adeegsan karo dagaalka ayaa awoodda dhaqaale waxa ay noqotay agabka ugu khatarta badan oo lagu kala adkaado. dagaalkani dhaqaalaha waa mid nuucyo badan, waxaa ka mid ah go'doomin dhaqaale, duulaan dhaqaale iyo abuur qalalaase dhaqaale ah. tani waxa ay dhaqaalihii ka dhigtay mid la awood ah hubka la isugu xoog sheeganayay xilliyadii colaadda. waxaa hubaal ah in dagaalka Ukraine uu ku guda qarsoon yahay dagaal dhaqaale ee u dhexeeya Maraykan iyo Ruush. haddaanu dib ugu yara laabanno goorta ay bilaabatay sheekada xiisaha leh ee dagaalkani dhaqaalaha ah, waxa ay ahayd bishii Juun sanadkii 2012. goortaasi waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo Maraykanku uu cunaqabataynta ku bilaabay Ruushka, markaasi oo guddiga arrimaha dibadda ee Maraykanku ay u gudbiyeen xildhibaanada Koongareeska in ay ka doodaan ansixinta xeer ay ku magacaabeen Sergey Magnitsky. sharcigani oo ay ansixiyeen xubnihii Koongareeska ayaana ujeedadiisu waxa uu ahaa in la ciqaabo siyaasiyiinta Ruushka ee mas-uulka ka ahaa geerida nin Ruush ah oo la yidhaahdo Sergey. isagoo waxa uu ahaa qareyn iyo xisaabyahan canshuureed oo dhalashadiisu ay ahayd Ukraine. waxa uuna ku takhasusay kana shaqaynayay la dagaalanka masuqa nidaamka dhaqaale iyo laaluushka.
isagu waxa uu soo bandhigay nusuq maasuq iyo weliba xatooyo ba'an oo ka dhex socda gudaha hay-adaha maaliyadeed ee dowladda taasi oo ay ku kacayaan mas-uuliyiinta dalka. Sergey oo ah nin lagu magacaabay xeerka Magnitsky waxa uu ahaa nin u shaqaynayay shirkad qaareen oo magaceedu ahaa Firestone Duncan. shirkadani waxaa magaalada Moscow ka furtay 2 dhalinyaro oo Maraykan ah. iyagu waxa ay ka mid ahaayeen ganacsato badan oo ku soo yaacay dalka Ruushka si ay uga faa'iidaystaan fursadaha ganacsi ee ka soo kordhayay dalkan kadib markii uu isbedelay nidaamkii shuuciga ahaa oo la fasaxay nidaam gaar ah oo lahaanshaha hantida ah. 2 dhalinyaro oo Maraykanka ihi waxa ay kala ahaayeen Jameson Duncan iyo Terry Duncan. shirkad qaareen oo magaceeda la yiraahdo Firestone ayay Moscow ka furteen dabayaaqadii sanadkii 1991 xilligaas oo dowladdii shuuciyadu ay ku dhisneed ee midowgii Sofiyeeti ay burburtay. dalku waxa uu galay mushkilad dastuuri ah maalintii ay taariikhdu ahayd 3 Oktoobar 1993 waxaa magaalada Moscow madaxa looga toogtay Terry Duncan. maantaasi la tooganayo waxa ay ahayd maalin xildhibaanadii baarlamaanka ay ka gadoodeen wareegto uu soo saaray madaxweyne Boris Yeltsin 1931 ilaa 2007 oo uu kala dirayay xildhibaanada baarlamaanka. geeridii Terry Duncan dabadeed howlihii shirkadda waxa ay sii waday James Duncan iyo Sergey Magnitsky, laakiin waxaa noloshoodii khatar ku keenay barnaamij howleed oo ay raadraaciisa ay ku daba socdeen. barnaamijku waxa uu ahaa lacago si ula kac ah loo xaday oo gaaraya $230 milyan. waxaa laga xaday qasnado kala duwan oo dowladdu leedahay. lacagtaasi waxaa si musuq maasuq ah ugala baxay koontada dowladda rag ka mid ahaa mas-uuliyiinta sare ee dalka. nasiib darradu ku dhacday Magnitsky waxay noqotay lacagtii la xaday ee $230 milyan ahayd ee ku raad joogeen ayaa isaga lagu eedeeyo. adduunyada tan dulmi lagama waaye. mas-uuliyiintii uu raadkooda hayay ayaa qareenka inta dambiile ka dhigeen misna xabsi dhigay. James Duncan oo ahaa ninka shirkadda u haray goortii saaxiibkiis la xiray ayuu dalka isaga baxay oo Maraykanka uu ku laabtay. Sergey Magnitsky 11 bilood oo uu xirnaa dabadeed meyd ayuu ahaa oo xabsiga gudihiisa ayaa lagu dilay. dowladda iyo warbaahinta midkoodna kama hadlin dulmigaas. dalkan oo dhacdooyinka caynkaas ah ay ka badan yihiin ayaana waxa ay ka mid tahay meelaha ay isaga eg yihiin bulshada Soomaaliyeed. sharcigii muwaadinka ilaalin lahaa ayaa waxa uu ilaalinaya mooryaankii dulmi falaha ahaa markaasaa lagu dilaya qofka la dulmiyey. dembigii laga galay Sergey Magnitsky markii uu dhintay dabadeed waxa uu joogsaday nin Maraykan oo la yiraahdo Bill Browder. isaga waa aasaasaha iyo weliba gudoomiyaha guddiga fulinta shirkadda lagu magacaabo Hermitage Capital Management. Bill Browder waxa shirkadda la aasaasay nin dhalashadiisu tahay Lebanese Brazilian kaas oo la yiraahdo Elmad Safara. shirkaddu waa mid ka shaqeysa maalgashiga dalka Ruushka. waxa ay xarumo ku leedahay London, Moscow, jasiiradda Cayman Island ee dhacda galbeedka Caribbean-ka. xarunteedana waxa ay tahay jasiiradda Quesney ku beegan gobolka Normandy. Bill Browder isaga oo u waramaya warbaahinta waxa uu sheegay geerida Sergey Magnitsky in ay sabab u tahay in uu ku raad joogay dambiilayaal doonayay in ay dhacaan lacag malaayiin ah. wuxuu intaas si raacshay in lagu ciqaabay in uu khatar ku leeyahay siyaasiyiinta iyo weliba madaxda musuq maasuqaysa hantida ummadda. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. intaaynu ka gaarayno warkayaga xigana waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonnimo.